السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cali Caamir Xasan. kusoo dhawaaday mar kale muuqaal cusub. maanta waxaan ka hadlaynaa topic ku saabsan cilmiga caafimaadka, gaar ahaan signs and symptoms. maxaa loo yaqaanaa signs, maxaa loo yaqaanaa symptoms? in badan meelaha caafimaadka haddii aad tagto, dhalinyarada neeriska iyo xataa dhakhaatiirta freshka ah ee juniorka ah waxay isku qaldaan waxa loo yaqaano signs and symptoms. marka wax badan ayaan ka sheegi doonaa signs and symptoms, noocyadeeda, iyo maxaa loo yaqaanaa signs, maxaa la yiraahdaa symptoms. marka dabcan signs iyo symptoms sida aan u naqaano waa calaamadaha kasoo muuqda qofka bukaanka ah markii yacni dhakhtar uu yimaado, waxyaabaha la weydiiyo ee qofka intaan yacni history diagnosis lala yeelan, waxyaabaha qaarkood kasoo muuqanaya ama waxyaabaha asiga uu dareemayo ayaa la yiraahdaa signs and symptoms. markii la isku qabto labadaas loo yaqaanaa. marka dabcan note yar ayaan kasoo samaystay oo aan maxaa la dhahaa faahfaahin yar oo kooban ku sheegi doono. sidaan ognahay signs marka aan ka hadlayno, sideedaba waa temperatureka iyo pulse rateka iyo colorka. tusaale ahaan oo kale qofka muuqaalkiisa, midabkiisa oo kale waxa inuu isbedelo, taasoo kale waxay soo hoosgelaysaa signs-ka. iyo sidoo kale in qandho ay jirto kale, heerkulkiisa oo isbedelo kale. symptoms ayadana sidoo kale kolley waa in maxaa la dhahaa uu dareemo qofka daal, inuu dareemo dawaqsanaasho, inuu body pain jiro, xanuun, iyo inuu jiro chills ama jarays. marka sidaas ay ku kala duwan yihiin. haddaan si kale u niraahnana, waa wax macnaha qofka kasoo muuqanayo jirkiisa iyo wax aan jirkiisa kasoo muuqanaynin. si hoose haddaan definition ugu sii sameyno, marka signs maxaa la yiraahdaa waa wax macnaha cudur keeno, caddaynaya inuu cudur jiro, taasoo dhakhtarka ama nersinka uu observation ku sameeyey ama uu arkay, qofka ka arkay, oo maxaa la dhahaa uu inta qalab maxaa la dhahaa isticmaalay, ama maxaa la dhahaa check up qofka ku sameeyey jirkiisa oo ka arkay, ayaa waxaa la yiraahdaa signs. halka symptoms ay tahay wax cudur caddaynayo laakiin qofka asiga shakhsiyan uu dareemayo, that's experienced by the patients only. bukaanada iyaga keligood inay waxaan dareemaan ayaa waxaa loo yaqaanaa symptoms. marka qofka wixii asiga shakhsiyan jir ahaan ama naftiisa uu ka dareemo ayaa waxaa la yiraahdaa symptoms. halka tan kalena signs la yiraahdo qofka wixii dhakhtarka uu kasoo sheegay ama nerska intuu qalab isticmaalay, observation ku sameeyey, uu ku arkay, ayaa signs iyadana loo yaqaana. examples haddaan soo qaadano, hal cudur ayaan labadoodaba tusaale usoo qaadanaynaa. covid-19 oo kale tusaale usoo qaado. covid-19 signs markii la joogo waa qofka inuu qandho dareemo oo kale, iyo antibodieskiisii qofka inay kacaan oo kale. symptomsna markii covid-19 la joogo, symptomsna qofka waa inay ka tagto urtii iyo dhadhankii, loss of taste and smell. exampleka labadoodaba halkaas cudur ayaa ugu filan. marka qofka markuu qandho dareemayo waa signs, waa calaamad kasoo muuqanayso, waa taabanaysaa, qandhadii ayaad arkaysaa. laakiin symptomska maxay noqonaysaa marka wax asig gudihii uu ka dareemayo oo shakhsiyan kusoo maxaa la dhahaa baxayo, oo asiga keliya uu dareemayo, dhakhtarka uusan dareemaynin. sida in urtii qofka ay ka tagto iyo in dhadhankii uu ka tago. sidaa darteed dhakhtarkii ama qofka neeriska ma dareemayo qofka inay urtii ka maqan tahay ama dhadhankii uu ka maqan yahay, qofkan ma dareemayo. that's why loo dhahay marka experienced by patients only. qofka keliya wax kusoo bambaxayo, kusoo yacni kordhayo waaye, oo asiga shakhsiyan dareemayo. estimationka marka qofka markii yacni dhakhtarka u yimaado, waxyaabaha uu dhakhtarka yacni sii ogaan karo maxaa ka mid ah signs markii loo fiiriyo iyo symptoms markii loo fiiriyo. signs markii la joogo, dhakhtarku waa wuxuu sii ogaan karo, estimated by visibly, wuxuu ogaan karo asigoo arkayo ama uu instrument isticmaalayo, sida inuu pulse rate ka cabiro, signs waaya, inuu pulse rate ka cabiro, sida inuu maxaa la dhahaa jacking temperature sameeyo, sida inuu sameeyo blood sugar, maxaa la dhahaa jacking ama blood sugar uu test garayo, sida inuu sameeyo maxaa la dhahaa qofkii
x-ray oo saaro inuu microscope isticmaalo iyo wixii lamid ah. taas waa science ay soo hosgelaysaa markii qofka inuu dhakhtarku ogaado rabo cudurka qofkan hayo. symptomsna qofka maxaa la dhahaa looma samayn karo estimation ama maxaa la dhahaa lama cabiri karo, jackin laguma samayn karo, waayo wax la xiriira waayo qofka gudihiisa wixii ka jiro. tusaale ahaan oo kale wuxuu ku dhahay jarays ayaan dareemaya, jarays ma cabiri kartid, mana ogaa kartid, mana sii qiyaasi kartid, cudurka oo jarayska keenana ma sii sheegi kartid. so waxaa la dhahaa can't be measured oo maxaa la dhahaa estimated, lama qiyaasi karo lamana cabiri karo. sidoo kale markii symptoms la joogo marka dadka bukaanada iyaga ayaa shakhsiyan dareemaan waxa gudahooda ku jira. personalis feels themselves, iyaga naftirkooda naf ahaan iyaga keliya ayaa waxa ay qabaan ama cudurkaas dareemayaan oo express ama ayaga qeexi karo ama ayaga ayaa sheegi karo. marka symptomska ayaa mar walba waxay tahay wax qofka gudihiisa ku dhex qarsoon. tusaale ahaan qofka wuxuu dareemaa dabaqsanaasho, tusaale ahaan wuxuu dareemaa headache ama madax xanuun, qofka wuxuu dareemaa body pain, jir xanuun ayuu dareemaa, qofka wuxuu kaloo dareemaa itching, cuncun. waxaas marka dhakhtarkii ma arki karo, ma estimate garay karo, cudurka waxaas keenana ma sheegi karo. that's why marka loo dhahay lama cabiri karo lamana qeexi karo qofka waxa hayo markii symptoms la joogo. meesha kale aan ka fiirinayno waxa waaye typeska noocyada ay kala leeyihiin symptoms and signs and symptoms, noocyada loo kala ablaameeyo ama loo kala qaado maxaa waaye. 4 types ay leedahay signs, 4 types ay leedahay. 4 typeskaas waxaa ka mid ah halka symptomsna ay 3 types leedahay. 4 typeska oo signs ay leedahay waxaa ka mid ah anamnestic sign anamnestic sign waa video kale aan kasoo samayn doonaa haddii ilaahay ii ogolaado, iyaga inaan sii ka sheekeyno ama qeexno. anamnestic sign, prognostic sign iyo diagnostic sign iyo midka ugu dambeeya oo ah pathognomic sign. afartaas nuuc ayay leedahay. midda la yiraahdo signs waa anamnestic sign, prognostic sign, diagnostic sign iyo pathognomic sign. halka symptoms ay leedahay 3 nuuc oo kala ah chronic sign, relapsic sign iyo remitting sign. intaas ayaa loo kala qaadaa. waa 3 nuuc symptoms aan dhahay, cafwan sign ayaan ku daray laakiin waa symptoms, waa chronic symptom, relapsing symptom iyo remitting symptom. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalka. fadlan hadduu videogan kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad nala sii faafiso oo aad gaarsiiso asxaabta daneynaysa caafimaadka iyo dhammaan intii mar walba uu quseeyo waxyaabahan la xiriiro signs and symptoms. please hanaga iloobin inaad subscribe inoo saarto YouTube haddaad naga daawanayso, Facebook haddaad naga daawanaysana aad share, like iyo comment ku qabato. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.